Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii nuxurka buugaagta oo aynu kaga hadalno nuxurka iyo qodobada ugu muhiimsan ee buugaagta. Maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa qaybtii labaad ee buuggii awoodda xakamaynta nafta ee uu qoray Allaha u naxariistay qoraagii Masriga ahaa ee Ibraahim al-Fiqi. Guud ahaan buuggu wuxuu ka kooban yahay 5 qodob. 2 ka mid ah waxaynu ku soo qaadanay qaybteennii hore. Waxaanu maanta halkan ku soo bandhigaynaa 3 qodob ee hadhay. daawadayaal sidii aynu hore u soo sheegnay, Ibraahim al-Fiqi buuggiisa awoodda xakamaynta nafta wuxuu ku soo koobay 5 tiir oo aasaas u ah awoodda xakamaynta nafta. Maantana waxaan ka bilaabi doonaa qodobka 3. qodobka 3 sida aynu u aragno ashyaada. mid ka mid ah maamulayaasha shirkadaha dhismayaasha dhaadheer ayaa waraystay shaqaale ka shaqaynaya meel lagu dhisayo dhisme. wuxuuna weydiiyey mid ka mid ah shaqaalihii, maxaad samaynaysaa? Kadib wuxuu si cadho leh ugu jawaabay, waxaan burburinayaa dhagaxaantan oo aan weliba habaynaya anigoo u isticmaalaya dubahan keliya. waana shaqo adag oo igu sababtay dhabar xanuun iyo dhaawacyo gacmaha. kadib wuu ka dhaqaaqay maamulihii ninkii, isagoo isla su'aashii weydiiyey shaqaale kale, maxaad samaynaysaa? waxaan habaynayaa dhagaxaantan oo aan u habaynayaa si nashqadaysan oo nidaamsan. waa shaqo adag, laakiin waxaan ka helaa nolol maalmeedkayga aniga iyo qoyskayga, waxayna ii dhaantaa shaqo la'aan. maamulihii isla su'aashii wuxuu weydiiyey shaqaale kale oo saddexaad, maxaad samaynaysaa? wuxuuna ugu jawaabay, miyaanad arkayn inaan dabaq dheer dhisayo? sheekadan waxaynu ka fahmaynaa macno cajiiba. iyadoo 3 ninba hayeen shaqo isku mid a, haddana waxay ku kala duwanaayeen aragtida dhacdooyinka ama shaqada ay hayeen. taana waxaynu ka faa'iidaynaa in qofku niyad wanaagsan ku eego waxa uu qabanayo waxay u keenaysaa guul iyo horumar. sidoo kalena waxay ka caawinaysaa xakamaynta naftiisa. Mahatma Gandhi oo arrinkan ka hadlaya wuxuu yidhi, waxa keliya ee dadku isku dhaafeen waa aragtida fiyow ee ay ku eegaan waxyaabaha ku xeeran. guud ahaan fikraddan dulucdeedu waxa weeye, arrimaha nolosheenna soo wajaha inooma le isku ahmiyad, isku sina ugama fal celinno, haddana sida aynu uga fal celinno ayaa go'aaminaysa guusheenna ama guuldarradeenna. qodobka 4. habdhaqanka. fahanka habdhaqanka waxaa lagu tiriyaa arrimaha ugu muhiimsan ee lagu xakameeyo nafta. sida uu sheegay Dr. Shad Hamster, habdhaqanku waxa weeye inaynu fahanno sidee baynu u dhaqannaa, sidee baynaan se u dhaqmin. waa mid ka mid ah arrimaha sababa guusheenna ama guuldarradeenna. natiijada aad gaadhaysana waxaa keliya go'aaminaya habdhaqannadaadii iyo ficiladaadii hore. tusaale ahaan, haddaad shaqadaada jeceshahay, bandhigaaga shaqo wuxuu noqonayaa mid heer sarreeya. taalidkeeduna waa sidaa. haddaba waxyaalaha aasaaska u ah habdhaqankeenna waxaa ka mid ah: 1. saamaynta kaaga imaanaysa dibadda, sida waalidka, dugsiga, asxaabta iyo warbaahinta. 2. waayo aragnimada iyo khibradaha. waayo aragnimada iyo khibradaha uu kasbado qofku intuu nool yahay waxay qayb weyn ka tahay sida uu noqonayo habdhaqankiisu. 3. qadarinta nafta. qadarinta naftu waxay saameyn weyn ku leedahay habdhaqanka qofka iyo qiimaynta, ixtiraamka iyo kalsoonida uu ku qabo naftiisa. tusaale ahaan, dadka ay ku yartahay qadarinta naftoodu waxay had iyo jeer isku mashquuliyaan inay in badan wax cunaan, in badanna wax daawadaan. taa cagsigeeda, qofka qadarin badan u haya naftiisu wuxuu u dhaqmaa kalsooni badan iyo geesinimo, taasuu ku xaqiijiyo himilooyinkiisa kuna noolaado nolol farxad leh. 4. natiijooyinka. sidoo kale natiijooyinku waxay saameeyaan habdhaqanka qofka. tusaale ahaan, haddaad isku daydo inaad ciyaarto ciyaar cusub sida ciyaarta barafka oo aad ku jabto, natiijada jabniinku waxaa suuragal ah inuu dhaliyo habdhaqan ama fikir cusub oo aad ku joojinayso gebi ahaanba ciyaartaas. ugu dambayn, qofka dadka fahmaa waa qof xikmad badan, qofka naftiisa fahmaana waa qof maskax furan. qodobka 5 ee ugu dambeeya buugga, dareemada ama cawaadifta. dareemadu waxay u midaba badan yihiin sida jeegaanta, waxayna isu bedbedelaan sida jawiga. haddii aad doonayso inaad mar walba faraxsanaatid, naftaadana ka adkaatid, isku day inaad xakamayso dareemadaada xilliga cadhada iyo xilliga farxaddaba. hana noqon qof dareemadiisa ay go'aamiyaan duruufaha ama xaaladaha uu ku nool yahay markaas. ugu dambayn, noloshu waa hadiyad Rabbi inoogu deeqay, mushkilad kastaana xal ayay leedahay. sidaa darteed, go'aanso inaad noolaato adigoo faraxsan.